sida marka la joogo wadamada geeska Afrika ayaa caanaha geela uu ka yahay Turkmenistan quud daruuri ah. warbixin kale oo xiiso leh oo ku saabsan dhulka iyo dadka Turkmenistan oo ku yaala bartamaha qaaradda Aasiya, dal raad xiriir ah ku leh sooyaalka iyo ilbaxnimo salka ku haysa nolosha baadiyaha, nidaam ama hab maamul u muuqaal kii Soofiyeedka ee kaligii taliska ahaa, ama si uun ugu dhowkan hadda ka jira dalka Kuuriyada Waqooyi, dalka ugu taliska adag uguna go'doonsan caalamka. si kastaba dalkan oo 8 milyan oo ruux deegaan u ah ayaa hadda u muuqda mid dhowr tilaabo horay u qaadaya si uu dunida inteeda kale wax ula qaybsado, laakiin weli mid soo dhow maaha. dal caan ku ah taalooyinka tirada badan ee dahabka ka samaysan iyo xeerarka iyo qawaaniinta yaabka badan ee u degsan Turkmenistan. waa dal juqraafi ahaan dhaca bartamaha qaaradda Aasiya. waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Afghanistan, Iiraan, Uzbekistan, Kazakhstan iyo badda Qazwiin. waa dal 80% uu dhulkiisu saxare ama lama degaan yahay. bacaadka ayaa hareeyay meel walba. luqadda rasmiga ah ee uu dalku leeyahay waa Turkumaan. diinta asalka ah ee dastuurkoodu aqoonsan yahay waa diinta Islaamka. wadanku waxa uu ku jiraa kaalinta afraad wadamada haysta kaydka gaaska dabiiciga ah caalamka oo dhan. waana dawladda sagaalaad caalamka ee ugu soo saarka badan suufka. sidaas oo ay tahay waa dawlad la daaladhacaysa dhaqaale xumo iyo cunto yaraan baahsan sababo la xiriira ku takrifalka hantida qaranka iyo deymo hore oo isfuulfuulay oo dalka lagu leeyahay. waxaa intaasi dheer siyaasadda dalka lagu maamulayo oo ah mid aan la jaanqaadi karin wadamada ku socda wadada horumarka iyo baraaraha. arrinta ugu yaabka badan ee warbaahinta caalamkuna ay si weyn uga hadlaan mar kasta oo la soo hadal qaado Turkmenistan waa tan ku saabsan hab maamulka khallafsan ee dalkaasi iyo qaabka siyaasaddiisa loo jaangooyo. Turkmenistan waxa ay ka mid tahay jamhuuriyadihii ku mideysnaa Midowgii Soofiyeed ee kal hore burburay. kadib waxa ay madax banaanideeda ka heshay sanadku markii uu ahaa 1991. Sabir Murad Niyazov ayaa talada dalkaasi la wareegay kaas oo hoggaanka gacanta ku dhigay sanadku markii uu ahaa 1985. waa 6 sano ka hor intii aysan madax banaanidooda ka helin Midowgii Soofiyeed. ninkaas ayaa isu magacaabay in uu yahay madaxweynaha dalka ee inta noloshiisa ka dhiman oo dhan in uu maamuli doono. wuxuuna isu bixiyay naanaysta ah Turkmen Basha, taas oo loola jeedo hogaamiyaha Turkmaan. Sabir Murad Niyazov oo isku magacaabay Turkmen Basha waxa uu curiyay buug uu ugu magac daray Ruuxnaama oo micnihiisu uu yahay kitaabka ruuxda. waxa uu furay in waajib laga dhigo in buuggaas lagu barto dugsiyada, jaamacadaha iyo maktabadaha qaranka. wuxuu ka dhigay in la isku imtixaano wax buuggaasi ku qoran marka uu qofku muwaadinka ihi u baahdo in uu shaqaale noqdo, in uu qaato baasaboor, laysanka gaari wadista iyo dhammaan dukumentiyada dawladdu bixiso. marka uu qofku doonto qasab ayaa laga dhigay in imtixaan looga qaado waxa buuggaasi ku qoran. qofku waxa uu ku qasban yahay in uu buuggaas soo akhristay isla markaana uu soo xifdiyay waxa ku qoran, weliba waa in uu si togan uga falceliyaa. tan ugu daran waxa ay tahay buuggaas waxa uu faray in la agdhigo kitaabka Qur'aanka Kariimka ee yaala masaajidda, yacni meesha ay kitaabada Qur'aanka Kariimka ihi yaalaan in la hareer dhigo. sidoo kale waxa uu faray in orahyada qaar ee buugga ku jira lagu xardho ama lagu dhigo darbiyada masaajidda. taalo weyn ayaa buuggiisa looga sameeyay bartamaha magaalada caasimadda ah ee lagu magacaabo Ashqaabad. in taaladaasi buuggiisa loo dhisana isaga ayaa amar ku bixiyay. lacagta lagu dhisayna waxaa laga saaray qasnada dawladda. go'aanada ugu sii yaabka badan ee uu Niyazov gaaray waxaa ka mid ah in uu amray tirsiga bilaha sanadka in loogu kala magac daro xubnaha qoyskiisa. wuxuu mamnuucay in fantasiyo la qabto, in make-up la marsado, in la qoob ciyaaro. sidoo kale waxa uu mamnuucay in raggu ay garka iyo timaha madaxa daystaan. sidoo kale waxa uu soo saaray amar ah in ugu yaraan magaalo kasta laga taago taalo isaga sawirkiisa ah oo weliba taalo dahab ka samaysan ah. sanadkii 2004 waxa uu amray in la dhiso masjid dhismo ahaan weyn oo aad loo qurxiyo isla markaana isaga loogu magac daro. sidii ayaana la yeelay oo masjidka waxaa loo yaqaanaa Masjidka Turkmen Basha. qarash ahaan dhismaha masjidkaasi waxaa ku baxday lacag kor u dhaafaysa $1 bilyan.
sanadkii 2005 waxa uu albaabada isugu dhuftay dhammaan maktabadihii iyo isbitaaladii ku yaalay deegaanada caasimadda ka baxsan kaliya waxa uu soo reebay kuwa caasimadda gudaheeda ku yaala wuxuuna faray qof kasta oo xanuunsada in uu adeeg caafimaad u soo raadsado caasimadda gudaheeda sidaas oo ay tahay shacabka Turkmenistan waxa ay dalkooda si bilaash ah uga helaan gaaska dabiiciga ah adeega korontada iyo biyaha intaasba xukuumadda ayaa si lacag la'aan ah ku siisa shacabkeeda Sabir Murad Niyazov waxa uu geeriyooday sanadku markii uu ahaa 2006 waxaana talada la wareegay Bayrdi Maxamedov hogaamiyaha cusub ayaa isla markiiba uu talada la wareegay waxa uu laalay ama meesha ka saaray in badan oo kamid ah qawaaniintii iyo xeerarkii uu sameeyay Niyazov laakiin sidaas oo ay tahay waxba iskama bedelin nidaamkii maamul ee ku dhisnaa kaligii talisnimada iyo ku tagrifalka awoodda dawladda wuxuu soo saaray amar ah baabuurta aan cusaybka ahayn ama kuwa midabkoodu uu madow yahay in laga mamnuuco in ay soo galaan magaalada caasimadda ah cid ku dhiiran kartay in ay sababta weydiiso ama ogaatana ma jirin laakiin way iska muuqataa in uu yahay go'aan dooqiisa gaarka ah ku yimid wuxuu markiisii amray in bartamaha magaalada looga sameeyo taallo dahab ka samaysan oo isaga oo faras dul saaran ah waana loo fuliyay intaas kuma simin wuxuu kaloo faray in aygiisana taallo dahab ka samaysan loo sameeyo isna waa loo sameeyay waa hogaamiye aan lahayn laguna aqoonin borotokool gaar ah waxaa dhacda in mararka qaarkood la arko isaga oo baaskiilka xaynaya isla markaana kaartoon ku shishbaranaya marar kale waxaa dhacda in la arko isaga oo biro miisaan culus ah kor u xambaaraya golihiisa wasiirada marar isaga oo heeso raab ah ku luuqaynaya marar kalena isaga oo siyaabo kale u falaadaya ama u baashaalaya Turkmenistan waxa ay ku jirtaa xaalad adag oo xagga maamulka siyaasadda iyo nolol maalmeedkaba ah waa dalka ay aadka u yartahay in loo socdaalo sanadka oo dhan dad aad u tiro yar ayaa booqda ama dalxiis u raadsada waxa uu ku soo xigaa waddanka Kuuriyada Waqooyi oo ah dal aysan sahlanayn in loo safro si kooban waxaanu dhihi karnaa Turkmenistan waa dal xiran adeega internetka in la helo waxa ku gadaaman shuruudo adag si adagna waa loo dabagalaa dadku marka ay internetka isticmaalayaan waa dawladda kaliya ee ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay in ay tahay dawlad dhexdhexaad ka ah siyaasadaha caalamka Turkmenistan waxa laga diiwaan geliyay waxyaabo cajiib ah waxa dalkaasi yaala garaangarta Faryas oo ay ugu weyn tahay caalamka dhismaha ugu weyn caalamka ee loo ekaysiiyay xidiga guryaha iyo dhismooyinka ugu cadcad caalamka iyo qaar kale oo badan magaalada caasimadda ah dhismooyinkeeda oo idil waxa marsan rinji cad gawaarida magaalada isticmaalaysa oo idil waa kuwa midab ahaan cad kuwaasina waxa ay ka dhasheen amarada hogaamiyaha dalka oo amray in midab aan cadaan ahayn aan la isticmaalin yaynaan hilmaamin waxa dalkaasi ku yaala god loogu magac daray albaabka naarta jaxiima waa god weyn oo uu dab ka holcayo tan iyo sanadkii 1971 waxa uu ka dhashay qaab qaldan oo loo qoday gaas laga baarayay dhulka hoostiisa dabkii markaasi kacay ayaa la filayay in maalmo kadib uu iskiisii u dami doono laakiin dabkii ma joogsan wuuba ka sii daray waana mid ilaa iyo xilligan ka holcaya halkaas waxaan rajaynayaa in aanu soo gudbinay warbixin xambaarsan macluumaad wax badan nagu soo kordhiyay oo xiiso leh insha Allah waxaanu soo gudbin doonaa warbixino kale iyo dokumentariyo xiiso leh oo wax badan nagu soo kordhin doona tan iyo kulan dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah